بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. dhammaantiin aad iyo aad baan idin salaamayaa meel ay ku sugan tihiin. waxaanan idin leeyahay iga raali ahaada. Saciid Cabdulraxmaan aad baan walaal ku salaamay. waa bishii khayrka qabtay ee Ramadaan. runtii deenina hadal iyo hawl iskuma wado. bulshada reer Somaliland iyo bulshada Soomaaliyeed ee saxda baan jecelahay. ixtiraam baana naga dhaxeeya, waan ixtiraamaa, sharaf baan mudan yihiin. ummaduhu inay wanaag ku wada noolaadaan baana wax kastaba ugu horeysa oo ugu qurux badan oo dalkan maanta ku noolahay iyo dunidan maanta ognahayba. de waxa lagu wada noolyahay waxa weeyaan buswaaq, isqadarin, is-sharfid iyo isqiimeyn. waxba caburin iyo cadaadis iyo cadaawadi waxa ma tarto. taas waa taa. waxaa leeyahay dhammaantiin aada barnaamijka in badan kusii jiri maayo. waxaan idinka codsanayaa, inta badan maan odhan jirin shargareeya, laakiin waxaan idinka codsanayaa shargaraysan. maasha allah. horta sidaan wada ognahay dee dunida isbedelaa ka dhaca. isbedeladuna wax lala yaaba maaha, waa wax iska soo jiran oo dunida o dhan isbedeladu way ka dhacaan. inteera horta intaanan arrimahan Soomaalidaba u galin, dabcan waxaynu arkaynaa South Yemantii koonfureed oo dabcan hadda ka hor xorriyadoodii hanad waa beri Axmed وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. haddaan isaada walaal dadka la hadal barnaamijyada iga yara luma. dad badan oo iska xasad noqdeena oo aan iyagu aragti badan lahayna col bay la noqdeen. runtaa fiican waxaan igula culuubeen waxa weeyaan waa maxaad runta u sheegaysaa, maxaad Somaliland oo u noqotay, maxaad dadkaaga aad u jeceshahay, maxaad waxa ka qabda weeyaan oo deegaankayga iyo dalkayga waabay ku haystaanba. qaar baa wax odhanaya Somaliland baad ku socotay oo Somaliland sooniga hadda ka horba kasoo jeeday anuu macirkan kasoo dhacay. Somaliland waa deegaankaygi, dadkuna waa dadkaygii, waa ehelkaygii, waa qaraabadaydii, waa meesha xuduntaydu taali. diinta islaamkaaba waxay dhigaysaaba dee meesha ehelkaaga iyo qaraabadaadu. anigu hadda ka hor waan khaldana. qofka bini-aadanka dunidana waxa ugu fiican qofku markuu khaldamo khaladkiisa sax. khalad bay totally idinku wadantan nin saxsan iyo arkaba beriga, laakiin anu waa khaldana. sababtoo waxaan ka gardarnaa ka khaldanaa dadkaygii, deegaankaygii, ummadaydii, nabadgelyadoodii, wanaagoodii ayaan kasoo horjeeday. ilaahay qof kastaba ha soo hadiyo. doqonnimona ma iga ahayn, waayo-aragnimo baa iga soo kordhay. iminkana doqon miyi waxaan ahay nin badheedhay oo de nin gartay dee wixii wanaagiisa uu ku jiray oo dee fahmay, xaqiiqada fahmay. allah ya baarik. qolyo fara badan waan arkay oo nin wax ma raba inaan aad ba ugu sii daalay, laakiin reer Somaliland baan waxaan kala aan la yaabanahay, iyaga laftigooda aan iminka la yaabanayba. runtaa fiican war reer Somaliland de beriga hore cadowga ay ku mindiri jiray. warkayga cadowga idin nacab ee nacabkaaba idin soo gaadhsiin jiray. idinkuna iminka warkayga waa qaadi kar laadin. hadda ka hor wixii warkayga meel kastaba idinku keeni jiray waxay ahaayeen dad aan nasteexidin ahayn, anigana aan nasteexi ahayn, oo cadaawad iyo cunfi unay ka ahay iyo ku xumee iyo ummadda dhan noloshooda iyo wanaagooda inay baabiyaan. dunida wax isku khasbanaanaya ma jiraan, wax khasab isku ahaanaya ma jiraan. dabcan waad arkaysaano dunida waxaa lagu wada noolaadaa haddii dowladnimo ka dhexayn kari weydo xadaarad kale oo ah in ganacsiga, iskaashiga, isdhexgalka. inagu ma European baynu sunnigan maanta European ku dhex nool sunnigan kala diimaha sunnigan adigoo diin kasta iyo nooc kastaba hinduuskii, buddhistihii, jewishkii, kiristankii soo kuwan isku wada dhex nool ee wanaagga samaystay. waayibaa horta Soomaalidu ay uga xanaaqaan qof wanaag samaystay oo horumar samaystay. talabaad Soomaalinimada ma cid baa cid marti uga ah. waxay kugu soo celinayaan warta kan ma Soomaalinimada ma urba kaga jira
waxay kugu socolinayaan maantaba hebel Soomaaliyeed war anigu meen diiday Soomaalinimadiisa bal barta war rag baa jaamacad aniga iga diyaariyay aniga cabsanaan walahi mutacalimiin oo dunida daclada jooga waxay ku soo qorayaan hebel oo Soomaaliyeed wanu meen Soomaalinimadiisa ku qabsaday mise aniga Soomaali iga dhigay Soomaali mise cid baa cid ka barida waa aragti aad u liidata waa aragti gaaban caawa horta barnaamijku inta badan kuma mabu ku taxalluqin caawa barnaamijku wax ku taxalluqa oo ku saabsan oo aanu soo galay waxa weeyaan laba group horta alla ilahay warka waan ku dirsaday waan ku faraxsanahay hadalkayga maga badan runtuun baan gooladaa sidii may waan ku faraxsanahay waajibkiisa la mariyay waana run xaqna weeyaan gudoomiye maxkamadda ku meel gaarka ee uu farmaajo samaystay ee isaaq ee Soomaaliland ka carray طبعا muqdisho tagay in maanta lagu bahdilo waajibkiisa mariyay sababtoo ah reer Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadal baa ka dhaxeeyaba nin kasta oo reer Soomaaliland oo barta maanta ku jira muxuu Soomaaliland taraa muxuu Soomaaliland ka bedeli karaa miyuu cashuur ka soo qaadi karaa waa maya miyuu Soomaaliland iyo deegaankiisa iman karaa waa maya dulsaar buu ku yahay muqdisho dhibaato ku yahay waa Soomaaliland dunida waxa la qiimeeyaa waxa weeyaan waa shacab rabitaanka shacabka ayay ku taagantahay xukuumadda Soomaaliland waxaana ka timi shacabka reer Soomaaliland waxa hogaamiya waa shacabka ana idin sabaynay nin kasta oo siyaasi iyo nin kasta oo madax ka maqashan waa go'aan dadweyne waa go'aan shacbi shacabka reer Soomaaliland dunidana the people's power waxa priority kale waa dadka Faransiiska imka dadkooda power kale iyaga wax bedela iyaga Emmanuel Macron bedeli kara iyaga Sarkozy bedelay iyaga madaxweyne kala dooran kara shacabka reer Soomaaliland baa awood leh nin aan shacabka reer Soomaaliland waxba ka dhaxahayn waliba waxa la majority leads minority in uu muqdisho horta joogo waa xaraamba maxay bal Soomaaliya xisbidiya maxay wada hadlaynaa maxaa fagaarayaal caalamiya in Turkiga ugu wada hadalnay maxay Soomaaliland iyo Soomaaliya u wada hadlayaan hadii ba qaar reer Soomaaliland ay barta joogaan waa ku saxsantii qodob kale oo ku sidaray anu koonfur waxaan u aqaanaa maanta iyo farmaajo ninka jooga anu koonfur ma nibci bulshada reer Soomaaliya ma nibci Soomaalinimadana aniga isinjiga weeyaan mana nici karo laakiin kala siyaasad baan kala dawladeen hadda ka horna kala dawladeen iminkana kala dawlad baan noqonay waxaan leeyahay ninka aniga nacabka igu noqonaya noloshayda aan ogolayn ee hadda ka hor noloshayda la dagaalamay ee dadnimadeeda la dagaalamay adar maantana waxba nagama dhaxeeyaan okay halka markay marayso xaaladii waxa weeyaan waa reer muqdisho way ku saxsan yihiin inay wixii Soomaaliland ka tagay ee u shaqo taga ee gobolka Banaadir war xuquuqdiina iyo xaqiina doonta oo xuquuqdiina iyo xaqiina la soo bax yalla idinku mashquulin iminka biikada ma dhaxras lagu mashquulinay waa arkaysan qaar gada ka yimi ba say doonaan idin la hadlay waa munaafiqiin meediyaha baan ku jiraan oo ka qaylinaya okay ta hadaan waxba daanagu nimanka waan isnaqaanaa waa nimankii Soomaali dumiyay waa nimankii Soomaali bartaa dhigay waa cadowga Soomaaliyeed waa niman munaafiqiina oo inta badan aan si fiican u naqaano waxaan leeyahay mid labaad baan ugu sii daray ninkii fahmi kari waayay ee quud wuxuu farasqayihiisii qurux buu ka doorsaday ee quud yar iyo dhaqaale yar ka doorsaday cadaawada uu farmaajo ku wado ummadda reer Soomaaliland isaga gardarada uu leeyahay Somaliland special arrangement wax la hado uu la dagaalamay waxa kale oo uu la dagaalamay Somaliland inay noolaataba cadaawad ninka reer Somaliland ay barta jooga waxba farmaajo waliba waa nin lead taa ka sandhig in sharaxaad yar oo kale intaana qodobka saddexaad u daadin ayaa waxaan ka siinayaa ururka midnimada Somaliland ee gudoomiyaha ka yahay ninka la yiraahdo Ibrahim Aidi maxaa mu sameyn maxaa ururka loo sameeyay anigu ma sameynba xaqada fiican yaanan gool aanan lahayn yaana qaadan anigu ururka ma sameyn laakiin ururka iyo ahdaaftiisa hadaan iyo idin sharxo ururkaas waxa uu u taagan yahay xuquuqda bulshada reer Somaliland qod sharaxaad yar oo kale waa ka sinay
hadda ka hor waaniga hadalkaba ku bilaabay somalilan waxay ku qotontaa oo ay ku taagantahay waxa weeyaan rabitaanka shacabka reer somalilan. marka shacabkii reer somalilan moral la dagaalamayo ee moralkooda ay intay mediaha usoo galeen social mediaha weliba meelaha wax magaratada iyo dadka dhegagaalaha laga waalo nimankii kacaanka ee soomaali dumiyey ee cadowga ee aan aragtada lahayn ayaa ururkan la yidhaahdo ururka midnimada somalilan waxay ka hortageen. waayo marka bulshadii lagaa qabsado ee bulshadii been lagu afuufayo ee waxaan jirinaya mala awaal iyo imagination loo sawirayo waa inaad siyaasad kaga hortagtin. ururkaas waxay qabteen waxa aad u fiican, waxay hor istaageen oo ay u bareereen oo ay tooshka ku ifiyaan beenta mala awaalka ummadda isku dirka bulshada reer somalilan ee dhangagaalaha ay ku wadaan nacabkii faqashtii iyo kacaankii wixii ka soo haray. ururkaas horto taasuu taagan yahay. waxaa kaloo ururkaasu cidna dhaqaalo ma siiso, iyagaa voluntary iyo tabarucaadkooda ayay ku shaqaystaan. ururkaas haddaba cadow yeeshay. cadowguna qodobka saddexaad bay noqonaya. waxaa cadow ku noqday kuwa hadda ka hor somalilan iska dhigi jiray laakiin somalilannimadoodu aanay halkan dhaafsiisnayn oo ku ahaa qabiil iyo reeraysi ku ahaa oo kow ka yahay ciyaalka yarare dabcan aniga ila haybtaa aniga ka hor aniga igu soo shaabaxay ee meelaha ka xalli jiray ee badowda ah ee weliba illiterate ah aan aqoontana lahayn way aragnimadana aan lahayn ee kayr lahada neeq leeciisa riyoole oo ka wada keenay. waxaa lala dagaalamaya qof kasta oo somalilan ibraahim cid wax kale kula dagaalamaya iyo bulshada reer somalilan ee qadiyadooda difaacanaysa. waxaa lagula dagaalamaya waa koox kuldad ah oo isku xidhan. boqor buur madow baa ku jira, siyaasiyiin feelgaroobay baa ku jira oo qabiil dabada geliyey oo aan isku kalsoonayn oo hadda ka horna somalilan dhibaatooyin iyo mashaakilada fara badan ka geystay oo bulshada reer somalilan lugooyey oo dhibaato ku sameeyey ayaa waxan la socda iyo kuwa la baxay midnimo iyo mar kale. waxani waa kuldad isku xidhan. maxamed baashe oo midnimo iyo mar kale maanta la soo baxay, buur madow, ciyaalka yaree neeqneeqlayaasha, hablaha waxba odhan mayno, iyo hablo badan oo geesiin oo wanaagsan oo reer somalilan way jiraan, iyo midhar hablaa oo ay kaxaysteen dabeedna falsafad bay la yimaadeen ah inay haybaha reer somalilan ay caayaan. waa arkaysa habar unis baa la caaya, habar walba la iska caaya. ninkaa yar waxa uu ka tegi kari waaya xitaa oo ay soo ridaan oo iyagu ay wataan. waxaa ceeb ah, waxaa ninnimo darro ah, waxaa doqoniimo ah. marwooyinku dumarku ama haweenku waa doctors without border. dhaqankeennii ma ka guurayna dee inagu dad muslina bayna soomaali sinjigeena ah. dumarku waa dhaxadin, dumarku hayb maaha. marba ciddaa guursatay iyo ciddaa ay la joogaan dabcan way yihiin hayb, laakiin haddana dhaxdintaa waa lagu ixtiraamaa. halkaa intuu soo fadhiistay ciise riyoole ayuu ciise muse waa reer somalilan ragga ha caaya, hadduu caayayo ama inac hore ha caaya ama dabcan inacigaa nacayba muu lahayn. allaha u naxariisto maantana waa meyti. waxaanu ahaa ninkii reer somalilan daraaddeed loo xidhiyay dhibaatooyin faraha badan oo soo maray ee dadku been bay ka sameeyaan. xitaa markii dambe lahaa war haddaad ninku dhammaantiin koonfur aadaysaan anigu idin raaci maayo. beriga horeba kuwa juhulaha baa inacigaal ku karabaashay inuu xaggaa tago. warnimow yara kaadiya. inankaa yar qaar badan oo habar jeclaa waxay u yaqaanaan fariido. dumar fara wallahi inaanu ninka wax kasta uu sheegaa xaqiiqnooda faanna haygu ahaatay berina ha laasay buuri maxamed nuur fadal awgey nin raga baqsiga waa ceeb. wallahi hadda ka hor baan dumar iyo rag ba isku qabsan aan kuuri wax jira maaha, anaana idiin soo ogaan doono inaan wax jirahayn. waa ninka ka tegi kari waayey aayadii axmed maxamed maxamuud ilaahay nin sharaf badan ba, nin qiimo badan ba. da-du dabcan da baa ka daba timi, laakiin se ciise riyoole intuu bartaa soo fadhiistay ayuu wuxuu caayay. cayba maahabo dabcan oo dee bulshada gabooyaha ama dabcan midgaantu waa dadka unbaa iska juhulaaya.
ayuu halkaa wuxuu cay ku soo qorayay, wuxuu cayda ku shubay gabadhiini baa la guursan waayey, reerka waxay tidhi gabadha la dhahdo Aamina Waris Midgaan horaa joogtay waa aadan madoobe, bal ka warrama haddana qaar aadan madoobe saa kula socda, markaan kule war anigu ilaahay un baan aqaan maca reer daahir baanan u joojin markaan doono, qofkii khaldan anigu reer faaraxsoonaana micina uma joojiyo. waa wax haddana qaar baa waxaa buunbuuninaya ka warrama baro online page bay samaysteen, hadda ka hor website bay leeyihin Somaliland waxay ku hayaan Axmed Silaayo, waa wixii meel kastaan iga soo aflagaadeyn jiray aan kuna jiro war anigu mana Somaliland haddaan qof ka hadlay dee Maxamed Kaahin oo adeerkay baan ka hadlay, isagana gabadhiisa weligay ma soo hadal qaadin mana soo hadal qaadi karo, xitaa ubadkiisa inaan la kaftamo mooyaane inaan ubadka Maxamed Kaahin wax ka sheego waa xaraam calay. nooca niyo googorada xidha aniga hadda ka hor waan way xogaal baan waan wax kale ismaan ale xitaa beejkii imka iga xanibay wallahi iyaga iga xanibay oo ciyaalka yaree magaca habar jecel dilay aniga habar jecel waa dad sharaf badan, waa ummad qiimo badan, afar ciyaal oo inta lacag la yara baray aan rag iyo rabbi toona aqoon, war qof kasta way caaya ciise Ismaaciil oo dabcan reer Boorama oo boyn ogne Somaliland waxa la waa beesha dhaxawqra ma Somaliland awdal sanaag waxyaabaha qaar ayaanay garan karinba ay mid halkaan isaguna joogo maalayaan halkaa oo xaasidnimo war ninkan anaa madaxaygu saaran mar hadduu ciise Ismaaciil Somaliland taageersan yahay oo nin reer Somaliland yahay isaga inaan zaalu yiraahdo mooyaane inaan isaaqayga qabsada baa fiicanba marka isaga lama hadli karo. maanta qofka reer Somaliland ee Somalilandnimada difaaciya anigoo haddaan haybahana runtaa fiican markaan habar jecelahay anigu berigeed raadnimo taageeri jirin, laakiin haddana aragtideeda iyo qadiyadeeda iyo dadnimadeedu waxay siinaysaa shalay baa kursiga ka tagteen, shalay baa meeshin joogteen, Ibrahim Caydidood ogtiin oo muwaadin xalaal ah طبعا garxajis waa abtiyaashay aanu siyaasadii waxyaabaha qaar hal isku yara diidido waa nimankii Somaliland soo dagaalamay isna ma yahay lixley lahayn hargwaafi bay lahayn inankood bur bay lahayn gaadigu طبعا iyaga baan u lahaynba war abtiyaal meel la kala tegmayne horena wayna sulayn waxaynu surranahayna lama horan waa caws jilaale Somaliland taasina surran cid idinkaga baawar badanna walahi baan jirin. Ibrahim Caydidood ogtiin waxa dagaal ku soconaya طبعا qoliyaha de ilaana gaba kuwan maanta saasanay suranayso ciyaal yar magac la sheeganaya ma ay barta Afrika laakiin waa loo soo dhiibay waxa loo kula dagaalamaya waxa weeyaan muxuu Somaliland difaaciya muxuu Somaliland iyo warniyo ummadda reer Somaliland waxyaabaha noocaas ee fayraska ay inta dambe nagu soo batay meel nagu soo jeesan hay'adu doonaba hano ciyaalkaas wax kale kulama dagaalamayaan Ibrahim Caydidood waa Somaliland waxaana soo kareystay Burmadow kuwa maangaab ah oo meel lagu diri jiray anigu aanan garanayn oo cuqdad iyo cadaawad ku jirto Maxamed Baashe kuldada isku xiran ee la yiraahdo midnimo iyo marka la maanta la soo baxay xageeba midoobaysan halka midoobaysan waa kii meesha aad leedahay midnimo ma new faqashiya farmaajo maanta midnimo aan ka doorbidaa nabadayda iyo ninka reer Somaliland ee aan gurigeyga soo galay musabixi ba maanta oo kugu socday war musabixi iyo ciidanka Somaliland miyay habeen barka guriyaha u soo daataan miyaa gurigaaga la baadhanaya miyaa hantidaada la baadha miyuu odhanayaa sidii kii hore ee uu lahaa hadraawi furta dahabka oryaha iyo duluca gaarada deeqda la yaab kala anoo waxaan ku darayaa inta igu dul saarka ah waran uu guriga baan u baahanay waxba qaadaba aniga igu soo galay aniga cabsanaan wallahi guriga xaafada October inuu soo gali jiray saaba koofiyadiisi birta ahayd in militariga markuu ay nigeeti jiray war guriga in askari yaabala ma cid baa ku soo galay hatta hayb ka hadlaysaan oo aad leedin isaaq baasadana war dadka reer Somaliland iyo bulshada kale aan isaaq ahayn miyaa guriyahooda lagu galaa ilaahay maanta waa Ramadaan hadda dad muslim oo saxatin looguma galo war reer laasaanadu miyaa hantidiina iyo guriyihiina ciidamo reer Somaliland oo habeen barka soo galo oo idin soo daato dumarka kufsada oo dahabka iyo oryaha iyo baadha meelaha xunxunta ee baadha miyay jiraan
dee ma jiraan. war waxaynu wada deganay reer awdalow reer somaliland baa tin walaalayaal booramo ka dhacay shirkii dhaqan galay alla ya baarik war aynu meelaha dee qofka idinkana ilaahay baa reer somaliland baa tin samarona ilaahay baa idinka dhigay anuguna reer somaliland baanu ilaahay baa isaaq naga dhigay ciisana waa reer somaliland ilaahay baa ka dhigay dhulbaantana ilaahay baa ka dhigay qiimaankiisu dee saxdii balaayada ay kusii ordayaan wax u yaalaaba ma jiraan kan warsa gelina kadalik war miyaa inta ciidanka somaliland edeb darre idinla yimaadaan wixii ay ka samayn jireen nacabkii siyaad barre u watay ee farmaajona uu maanta waddadiisii uu qaaday ee uu muqdisho kuwii doortay ee lahaa ku lahaa afarmaajo ii geeya bal hadduu narageedii intuu soo baxo dadka la hadlo intuu iyaga u kala divide and rule oo maanta u kala dirayo uu leeyahay cumar hebel finisha ula hadal hebel kale ula hadal maxaa xiniihii iyo raganimadii mayaan washarata markuu musharaxa beenbeenta uu sheeganaya uu lahaa haddii aan waxba qaban kari waayo gawaadhida dhaadheer baan xagga dambe kaga boodaya maxaa maanta marka ummadda halkaa ku dhimanayso muxuu ula hadlayay waa ogtiin intii madaxweyne somaliland soo maray daahreele ha noqdo cabdiraxmaan axmed cali ha noqdo ina cigaal ha noqdo sileen ha noqdo ummadda way la hadlayeen musabixigaas ummadda ula hadlaya intu bartaa soo istaaga buu ummadda caadi oo shir jira iyadoo masaa qof kastaaba maxaa la odhanayaa berigaad ina cigaal maagi jirtay si xornimo ah taasaa raganimo la idhahda laakiin nin meel isku soo qufulay oo reer qabiilkiisii weliba ku ahaa kacaankii in yidhi social mediaha bulshada ka caaya oo weliba ku idin soo dhaweeyey cashuurtooda cunaysana caaya waxa loo dulqaadan kara maaha anigu kulle caawa walaal barnaamijka waxaan usoo galay ummadda reer somaliland waxaan leeyahay cidina inagama guuleysan karto dabcan beelaha reer somalilandna waxaa leeyahay walaalena xanafta kuwa wada ujeeday leeyihin ujeedooyinkooda ha qaadanina inamadaa yaryar ee maanta halkaa intay rag ba dhaafeen dumarka caaye dumarka war dumarku dee caay ma laha waa hooyooyinkeen waa hablaheeni nin waxaan la yaabi jiray beriga hore qaar naxal iyo nacayb iyo koonfurta ayaa waxaa soo war nin gabadha caayey nin siduu social media usoo gali kara bal ha la soo raadin eeg ma faanayo laakiin dhaqan noomay ahayn waxaana ujeedaa laga leeyahay qoladan midnimo iyo mar kale waxaan leeyahay dhalinyarada reer somaliland guud ahaantiin ama hargeysa kasoo jeeda ama berbere kasoo jeeda ama boorame kasoo jeeda ama caynaba kasoo jeeda ama burca kasoo jeedo waxaan fahma waxaa la doonayaa ee aflagaadadan loo wadaa waa in bulshada nimanbaa dhaqaale nagu soo qaatay oo iyagu aan nasanayninba dabeedna waxaan caydan iyo waxaan lacag baba lagu soo bixinaya lagu fangaranaya in haybaha reer somaliland la caayo habar war in la caayo habrunis in la caayo waradeer de waxaan waad arkaysaa continuous qofku markasta muu cadhaysan yahay mise markasta waxbaa jira waa jadwal dhan oo loo soo dejiyay schedule bay ku soconayaan habrunis ha la caayo habar war ha la caayo ciise muse ha la caayo waa dee isku dabcan ciise muse iyo sacad muse waa isku mid ah ha la caayo habar jecla ha la caayo ha la aflagaadeeyo waa mawduuc cusub oo inagu soo kordhay meel ha lagu soo dejiysto ummaddu waa mid somaliland first dadku waa walaalo waxaan leeyahay dadku bilaahi calaykum annaga ayaa dabcan ururka la yidhaahdo midnimada somaliland hala taageero aanu ka gudubno qabiil iyo waxaan yara hoose ururka midnimada somalilandna waa ururka u istaagay ee ka hortagay ee dabcan tooshka ku haya kuwa somaliland bulshadeeda social media intay usoo galeen waynu kasii jeednay marka hore xumaanta beenta isku dirka nacaybka xitaa war inaga maaha xitaa dadkan aad arkaysaan xitaa imika waxay mari xitaa heer ay soo qaataan calankii somaliland beejasha dhan nagu samaystaan soo nin war beejka habar walba biyuur ku qorantii habar walba ma laha iyagaa samaystay ururkaas waa ururka usoo baxay waanu jirayaa waanu joogayaa ibraahim caydid ninka lahdana ninka haldoorka ah ma aha in la xagxagto ninku weliba markuu runta sheegayo tolkii runta u sheegay waa nimayo maanta way yar tahay bulshada soomaaliyeed way ku yartahay nin tolkii markuu khaldan yahay anigu waxaan u arkaa inuu nasteex u wado tolkii dabcan waayo diintaaba ku odhanaysa xadiis baa ku odhanaya walaalkaa markuu khaldan yahayna taageer marka laga khaldayna taageer oo sideebaad u taageeraysaa dee khalad ka qabo
marka isaga dulmi lagu wadana dulmiga ka qabo garxajis waa walaalo reer Somaliland laba xisbi bay leeyihiin xisbiga uu ciidiyo xisbiga wadani Somaliland qaybtooda iyo waxooda iyo dabcan ma sha Allah warag Somaliland Somaliland kama sheegan karto xuquuq kula ma waxan inagu dhex jiray boonboonanaya war adeer garxajis iyo reer Somaliland waa walaalo iyaga hargeysa dadka wada degani ida gale anagoo dabcan anay saaba waxaan caaw halka ka sheegay in ciida gala soo garxajis maaha ciida gala iyo habara wallahi inay iska xigaan sidee bay iska xigaan tawaas loolaan waa in iyo abtigi way iskala qabaan waa dad meel ku wada nool diintuna saas iyaga gobolka hargeysa ku wada nool meel bay wax ku wada cunayaan ummadda nooca soo kala ninka raba inuu qori dable dhex galiya waa munaafiq aniguna dabcan kuwa burcaan walaalna koor baan xitaa walaalaan nahay dabcan reer boohoodle isku dad baan nahay isku deegaan baan nahay ninka awal hore isku haydrana waxa ninkii nacabka ahaa maxamed saal barre cadowga ahaa ummadda Soomaaliyeed isku diray faashistaha ahaa imikana farmaajo faashista baa isku haydraya xalaalo waxaan isku leenahay burcaan wada joognaa ayna baan wada joognaa laascaanood baan wada joognaa gobolka Sool magaalada ugu dadka badan la waa laascaanood ku soo xigtaa waa aynaba qof walahi inaan qof saxar taabsin karin hantina aan cidna ka dhici karin inaanu qofna haybtiisa ku dili karin dawladda iyo nidaamka ya gacanta bira lagu soo qabanay noolaada baan la yeemay ku sugantiin ba walaalayaal ciyaalkana dawaaniga arrintoodii idin sheegay waxaan ciyaalkan rag waaweyn ba dabada ka riixaya boqor burmadoona waxa la niyahow waxay oran doonaan hadhow qaar maxaad ku cadeynaysaa waxaan ku cadeynayaa oo ninkaga tagayo cadeynta boqor burmado waan ku cadeynaya walaalkii habarwaayo malaamka holoni meelahan uu malaa joogay waliba isaga ka weyn boqor burmado waan meel dhow ta hadlayo oo lahaa ciidan baan laga soo dhaqaajiyay meesha la yiraahdo halkaas oo xagal bay soo mareen oo ceel gardo wardad ku walaalo ceel garda iyo cidna umadu wanaaga ay ku wada nool yihiin cidna dhibaato dib u geysan mayse waa walaalkii waa isku hooyo isku aabe halka barco studio rubu ku haysan jiray ciyaalka deegaga yar halkii ilmo maxal caseen kubadda ku daawan jirnay ee dabcan burco waad garanaysaa Shamsuddin gurigii dhinaca koonfur ka soo eegay ee rukunka يطلع ملا جورجا من غير ظهر على همسين بهذا المدرب ما قرنا الله الله أعلم أي من كنا إسبربال لها وكي كويس نشري استوديو هالكا هي صح هي قرون ما كورا بقرون هي بلاي وكشرين شرير هي صح ضدو بيشري استوديو هبروا بلا وهو لالكي تواك هاللي يتقال خريبت كيشر مركا أنا أقول لك تصالحان مركا أنا عبد صانعي أنا وخلط أيام دبتك جسني هدي وراك أحمد حيس أما السعيد أما فرعت أما السيد مثل مديبة بريستاجو توان وضع قمار وديك تون كود شرنا بالبور مدو إنه كهذا إنه ولا لك وقت أنا صفر استوى مركا ما حنا بور مدو سجلت تجي سوحها أمتي روحه كصاب بلعب إنه نين أفطوب شو لوني كيلو نشرس وكي أفطوبي بربركو أفطوبي مش هي بروها لك مركي دمرة بل إنه حتى أك إني هبرش على ميت هاي أو بور مدو وبين عليه هي منافقة طبعا شو لوني ساعة مساجر عصابة شو لا ساعة مسيو أفطوبي هل كانوا كل دوي أو محمد بخور يوم مصاب بخور خلق حاني نين محمد بخور بأفطوبي نيوما وسليمان محمود إلهي هنا قد أفضل بيجا كلمة دا وإسكايل عليها كل هذا يقدر وسليمان قال وقدوميها قولها قلت ما أنا ساعة مصاب أفطوبي ما أدو قولها يبها بالمرة كانت قبيلة ليستها هي برشة لما لو أفطوبي وين محمد بخور واحد دميروش هي يضل تعرفها أنا المصاب بخور بتوب بعيدة أو بها نكن أنا أقول إلهي بي وإنه محمد وطبعا سليمان ده هو برع عبد الله وأحمد برع أنا بحكي استوى ناس عضوا ونقول يسقى وافطوا من ساعة نص يسقى ناس في عند ورا رقم ونكا سياسة قدر هنروح له خبرت عنه لو ما أنت أنا وأذيك يوم محمود حاشي يكور حدينا وضع صعوبتي من نمائي مركلة خبرت على اللفت جديد اللي بعتق كل رح وضع بقى ويسكت ريام محمد بكر مصاب بكر بفاطمة بعيسي وح ما لا يعني لا بعنا خبرت على ور رئيس المال هذا كورنا ما رحت نمدي يجا شوي ما أنت أنا أمد رئيس المال لام بقيب كي بلش رئيس المال أنا وورا واسكمت عدد من السلام يا كل استماع لك سجنتين بقى رمضان كريم
rabadaan iyo rabadaan la-aan baa anagu runtaanu sheegayna ururka la yidhaahdo midnimada somaliland ah la taageero. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.